kulan wanaagsan dhammaantiinba afrikada bari saacadu waa 2 duhurnimo oo gow ah qodobadaan idin hayana waxa kamid ah adeega internetka oo wali ka maqan qayb kamid ah koonfurta Soomaaliya iyo wararkii u dambeeyay xaaladda diblomaasiyadeed ee Shiinaha iyo Mareykanka oo meel xun gaartay kadib markii qunsuliyadda Mareykanka uu kulaha Shiinaha la xiray baaritaan ay BBC u samaysay ayaa lagu ogaaday in Soomaaliya cudurka corona ay ku dhinteen dad ka badan intii ay dawladdu sheegtay ciyaarihii horyaalka England oo la soo xiray iyo qodobo kale barnaamijka waxa soo saaray محمد عبد الرحمن شيخ علي أنا وعبد الرزاق عطوش بانهاي بل سمر كوري كوسو دواذا وركي عالم كعبد الرحمن علي ديمبل أيا إنو هيا mahad sanid cabdirasaaq Vietnam ayaa kaga jawaabtay kiiskeedii ugu horeeyay ee coronavirus ee muddo 3 bilood ah inay daadgurayso 80,000 oo dalxiisayaal gudaha ah oo ka yimid magaalada dekedda Da Nang boqolaal duulimaad ayaa la dejiyay kadib markii 4 qof oo 3 kamid ah ay ka yimaadeen magaaladaas laga helay fayraska Vietnam ilaa hadda wax dhimasho ma aysan sheegin kaliya waxa ay sheegeen 400 oo qof oo qaaday fayraska Hong Kong ayaa ku dhawaaqday qaar kamid ah tallaabooyinkii ugu adkaa ee wali lagu xakameynayo cudurka oo ay kamid tahay mamnuucidda makhaayadaha lagu cunteeyo dhanka kalena waxay diiwaan geliyeen lambarkii ugu badnaa hal maalin ee xanuunkaasi ee laga helo dalkaasi Dr. baaritaan ku sameeyay kiisaska cudurka coronavirus ee bilowga dalka Shiinaha ayaa BBC-da u sheegay inuu rumaysan yahay mas'uuliyiinta dawladda hoose ee Asturan heerkii uu gaarsiisnaa cudurku markii uu dilaacay. Professor Kwe Kyung-yun oo gacan ka geystay baaritaankii Wuhan ayaa sheegay in caddayn muhiim ah oo ku saabsan asalkii fiditaanka ee cudurkan la dambambasay sidoo kalena la burburiyay. Mareykanka ayaa sheegay inuu ka xun yahay xidhitaanka qasabka ee qunsuliyadiisa ku taal magaalada Shiinaha ee Chengdu taas oo qayb ka ah ismaandhaafka diblomaasiyadeed ee sii kordhaya ee u dhaxeeya labadan dal waxaa loo xidhay argudasho la xidhiidha amar Mareykanku xafiiska Shiinaha ee Houston uu ku xidhay xafiiskaas oo ay ku eedeeyeen basaasid ila caafimaad oo ku sugan Baghdad ayaa sheegay in laba mudaharaad ay dhinteen kadib markii sunta dadka kaga ilmaysiisay ay u adeegsadeen boolisku isla mar ahaantan ay toogasho u dhaxraaciyeen xilli mudaharaadayaashaas oo ka soo horjeeday dawladda Ciraaq ay dib u bilaabmeen waxaa dib u soo kiciyay kadib markii leedkii ka tagay halka dhanka kalena heerkulku uu kor u dhaafay in ka badan 50 degree ugu dambeyn dadka isticmaala warbaahinta bulshada ee Masar ayaa dhaleeceeyay muuqaal fiidiyoo ah oo nin reer Kuwait ah lagu arkay isagoo dharbaaxaya nin Masaari ah oo wax ku iibinaya suuq weyn oo ku yaal Kuwait iyagoo ku tilmaamay midabta koor iyo arrin dadnimada ka baxsan faafitaanka coronavirus tan iyo intii uu jirayba waxaa la arkay shakhsiyaad caan oo reer Kuwait ah oo ku eedeynaya muhaajiriinta dalkaasi yimid faafitaanka cudurka wararka caalamka ee BBC-duna dhageystayaal waa naga intaa Cabdiraxmaan aad baad u mahadsantahay hagaag kulan wanaagsan mar kale dhamaantiinba meel walba joogtaan koonfurta Soomaaliya waxa ilaa shalay go'an adeega internetka iyadoo sidoo kalena shalay ay cilad xagga wicitaanka ay ka jireen telefoonada koonfurta Soomaaliya amuurtan ayaa saameyn weyn ku keentay gaar ahaan isticmaalka internetka oo howlo badan ay ku xiran yihiin siday wax u jiraan iyo saameynta taagan haatan ayaan ka wareystay wariyaheena Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan cabdirasaaq catoosh maalintii labaad ee gobolada koonfurta iyo bartamaha waxaa ka maqan internetka gaar ahaan internetkan xawaarihiisa sareeya ee loo yaqaano fiber optic ee markiisii hore cablekiisa uu soo marayay badda warar kala duwan ayaa tan iyo shalay kasoo baxayay sababta keentay in internetku go laakiin hadda warka ugu dambeeyay shirkadda bixisa internetkaasi iyo dawladduba waxay leeyihiin waxay ciladi ka jirtaa cableka badda yaala meel ilaa 300 kilomitir u jirta xeebta magaalada Muqdisho waxaa la sheegay in dooradii wixii ka dambeeya la ogaan doono cilada qabsatay cableka iyo sidoo kale waqtiga ay qaadan doonto in ciladaasi la xaliyo 2017 bishii June sidan oo kale ayaa fiilada xeebta yaala uu markab jiray taasoo keentay in internetku muddo bil iyo ka badan uu ka maqnaado magaalada saameynta internet la'aantan ay ku keentay dadka nooga waran Ibraahimow cabdirasaaq Soomaaliya waqtiyadan dambe dhowrkii sano ugu dambeeyay waxaan moodaa in teknolojiyada adduunka si weyn ula jaan qaadaysa iyadoo adeegyada oo dhanba aad moodo in internetku uu ku xiran yahay shalay markii 10 arurnimo uu internetku go'ay dhammaan shaqooyin badan ayaa istaagay waxa istaagay shaqooyinkii bangiyada waxa istaagay xawalaadihii sidoo kale waxa istaagay baasaboorka bixintiisa oo adeegyada internetka aad loogu isticmaali jiray shaqooyinkii oo dhan xafiisyada oo dhan waxaad moodaa in ay isku cakiran yihiin oo internet la'aantaasi ay dhibaato keentay marka guud ahaan
saameyn xoog leh ayuu durba ka tegay 24 saac iyo ka badan ee internetku ka maqan yahay gobolada koonfurta iyo bartamaha. ibraahimow dawladda war ma ka soo saartay arrinkan internet la'aanta iyo weliba teleefoonadan lagu dhib qabay ilaa shalay in dibadda laga soo waco? wasiirka boosada iyo isgaarsiinta Cabdi Cashuur oo goorsi horeysay la hadlay wuxuu ii sheegay in ciladu ay tahay cilad ka jirta fiilada internetka xawaarihiisu sareeyo keenta ee taala wadda in ay ciladu halkaas ka jirto oo la ogaan doono maanta wixii loo gaaro wixii ka dambeeya gelinka dambe isla markaana la ogaan doono muddada arrintaasi lagu xallin karo. wasiirku waxa kale uu sheegay in ay yihiin waxba kama jiraan wararka baraha bulshada qaarkood lagu daabacay ee ahaa in dawladdu ay iyadu mas-uul ka ahayd internetka go-ay iyo arrimaha isgaarsiinta teleefanada aan dibadda laga soo wici karin ilaa shalay inkastoo maanta teleefanada caadi loo soo wacayay dadkuna ay dibadaha caadi u wacayeen. sidoo kale shirkadaha isgaarsiinta ayaa laftigooda iyo kuwa internetka waxay sheegeen in ciladu ay tahay fiiladaas internetka ee badda taalla. wasiirku waxa uu sheegay in ay xallin doonaan arrintan oo ay sida ugu dhaqsiyaha badan, laakiin waxa uu sheegay in arrintaas la ogaan doono uun marka cilada la ogaado. marka dabcan cabdirisaaq dawladdu waxay leedahay ciladu waa fiiladaasi badda taalla oo ay ciladi ku timid, waana la ogaan doonaa ciladaasi waxay tahay iyo waqtiga la xallin doono. adiga shakhsiyan siduu ku saameeyay internet la'aantan? cabdirisaaq marka laga soo taratan shaqada ee uu saameynta ku yeeshay dabcan waad ogtahay hadda waxaa shaqooyinka ugu badan ee miidyuhu isticmaalo internetka kamid a hadday tahay in aad la xiriirto xarumaha BBC-da, in aad wararka halkaas u dirto, dhammaantood waxay ahayd culays aada u badan tan iyo shalay mararka qaarkood teleefanadii ayaa istaagay oo xitaa waxaan xiriirkii naga go-ay dadkii kale ee shaqada nagala dhexaysay. tan shaksiyanna waxaad moodaa dee internetka wuxuu ahaa inaad subaxii markaad soo kacdaba aad hore ka eegtid mobilekaaga ama computerkaaga, dabadeedna aad waxyaaba badan oo noloshaada kamid a aad halkaas kasii amba qaada maalintaas wixii aad samayn lahayd. waxyaabaha kale oo mararka qaarkood aad isleedahay faa'iida ay ahayd waxaa weeye inaad ka nasato mobilekaaga inaad maanta oo dhan rogrogto. sidoo kale dabka telefonka inaanu dhicin. tusaale ahaan shaloo kale telefonkayga waxaa laga yaabaa in waqti badan aan gelin jiray inaan dab u helo, laakiin shalay oo dhan meel buu iska yaalay. dabcan markaan xalay guriga tegayna waxaan arkay telefonkii oo dabkiisa buuxa, marka waxaan siri meesha amay faa'iida ku jirto oad ka nasatay telefonkaaga. laakiin de dabcan waxa weye dad badan baan kala go'nay oo xiriirkeena uu ilaa shalay ilaa maanta uu aad u adkaa. haddaan kula kaftamana dabcan dee haasaawihii iyo shukaansigana meesha uu ka baxay. dabcan dee nin odayan ahayo hadda haasawahaas iyo shukaansigaas hadda waayadanba kuba jiray, laakiin de dadka dhalinyarada ah oo shukaansiga iyo haasawaha ku jiray dee aad buu u saameeyey. inkastoo gobolada koonfurta iyo bartamaha keliyatay ahaayeen gobolada kale naga sii fogfogaa iyagu ay internet haysteen. ibraahim maxamed aadan oo qadka teleefonka igu warramaya ayuu kaasi ahaa. qodobkaasi waxaa fikirkiisa ka soo dhiibtay faarax bashiir garow uu joogaa. wuxuu yidhi internet la'aanta ka jirta qaybo ka mid a Soomaaliya runtii waa arrin dhibkeeda leh, waxaase loo baahan yahay in shirkadaha adeegaasi iska lehi ay caddeeyaan sababta dhabta ah ee ka dambaysa maqnaanshaha internetka. hagaag cabdi manaan yuusuf maamulaha warbaahinta Astaan TV oo muddaba ku xirnaa magaalada Hargeysa ayaa maanta markii ugu horeysay la hor keenay maxkamad Hargeysa ku taala. dawladdu ma aysan sheegin waxa rasmiga ah ee cabdi manaan loo haysto. Sadiiq Burmad ayaan amuurahaasi goorsii horeysay ka waraystay. cabdi manaan markii ugu horeysay saaka maxkamad la geeyay, waana markii ugu horeysay ee intii la laa ee uu xidhnaa muuqiisa la arko. maxkamadda ciidanku markii ay geeyeen waxay dalbadeen 7 cisho oo dheeraada inay baadhis ay ku soo sameeyaan kiiska loo haysto. sidaas awgeed baana loogu soo celiyay xarunta dambi baadhista CID-da ee magaalada Hargeysa. maxkamadda ma laga sheegay cabdi manaan waxa loo haysto? cabdirasaaq qowl lagama sheegin, horena looma sheegin, ilaa imakana lama sheegin. waa la baadhayaa waxaan ahayn, laakiin saaka waa markii ugu horeysay ee meel loogyahay lagu soo xidhay ee loo ogolaado in maaragtay lasoo booqan karo, lasoo arki karo oo ehelkiisa iyo ciddiisu ay u tegi karaan. laakiin weli kiiska loo haysto lama sheegin. taliyaha ciidanka booliska qaybta sirdoonka oo aan la hadlay si aan u ogaado xogta uu xidhan yahay iyo halkii intii hore lagu hayay iyo wax jawaaba igama siinin su'aalihii aan weydiin lahaa. ehelkiisa ama wax qareen ah oo garyaqaan ah oo loo qabtay oo hadlay ma jira? ilaa imika intaan ogahay weli garyaqaan looma qabanin, se laakiin mar haddii baadhistiisu bilaabantay oo xarun CID lagu xidhay waxaa suuragala in loo qaban doono garyaqaan arrinkiisa ka dooda. cabdi manaan waa ganacsade Hargeysa maalgashaday, telefishinka Astaanna mulkiile ka ah. bal sharaxaad naga sii beec mushtarka cabdi manaan iyo telefishinkan Astaan. muddo dhaweyd Astaan uu halkan laga furay oo uu shaqaynayay waa xarunta Astaan ee magaalada Hargeysa.
ganacsiga uu halkan ku leeyahay waa kaas oo ah waa media production soo saara fankii hore iyo barnaamijyo kooban oo arrimaha bulshada iyo waxyaabahaas u badan lehna channel gaar oo la daawado laakiin ilaa imika lama ogeyn arrintu la xidhiidho astaan laftigeeda iyo inay si shakhsi arrimo kale u la xidhiidho waayo waxaynu ognahay in astaan ilaa imikadanba uu shaqeeyo oo isaga aanay saameyn ku yeelanin xariga maamuluhu sadiiq burmad wariyahayaga hargeyso qadka telefoonka igu waramayay ka qaybgal barnaamijyada laanta af Soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message telefoonka nambarkiisu yahay 4477862200 kadib waxa ay kula tahay BBC Soomaali halka wali aad nagala socotaan waa BBC barnaamijkeennii duurnimo bartanka kaga jirnaa waxaa kaloo naga dhagaysan kartaa cinwaankeena bbcsomali.com iyo waliba facebooka hagaag dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay ka xun tahay xiritaanka la xiray qunsuliyadda Mareykanka oo ku lahaa magaalada Chengdu ee dalka Shiinaha kadib markii xiisad diblomaasiyadeed ee labada dal ay sare u kacday wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in qunsuliyadaasi ay qaban jirtay howlaha galbeedka Shiinaha oo gobolka Tibetna uu ka mid yahay muddo 35 sano ah Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh Cali Gaacuur ayaa warbixinta amurtaasi inoo haya shaqaalaha Mareykanka ee qunsuliyadda Chengdu ayaa gabi ahaanba ka baxay ka hor inta aanay dhammaan 72 saac ee ay u qabatay dawladda Shiinaha xukuumadda Beijing ayaa tallaabadaasi qaaday si ay uga falceliso qunsuliyaddii ay ku lahayd Houston ee uu Mareykanka xiray toddobaadkii hore wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in hadda ay si buuxda gacanta uga hayso qunsuliyaddaasi laga saaray Mareykanka xiisadda u dhaxaysa labadaasi dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa bilihii la soo dhaafay sare u kacisay waxaana inta badan khilaafka Mareykanka iyo Shiinaha uu salka ku hayaa fayraska corona tacdiyada xuquuqda aadanaha ee la sheegay inay ka dhacaan gobolka Xinjiang iyo waliba sharciga ammaanka Hong Kong ee muranka badan dhaliyay madaxweyne Trump ayaa ku eedeeyay Shiinaha inuu si xaq darro ah uga faa'iideysto heshiisyada ganacsiga isla markaana uu xado hal abuurka dadka kale Beijing ayaa u aragta Mareykanka mid diidan saameynta ballaaran ee uu Shiinaha sanadihii dambe ku yeelanayay daafaha caalamka maasanid Maxamed bal markana viruska corona iyo sida uu Soomaaliya faraha baan ugu hayo aan galno halkaas oo xogta rasmiga ee dawladda ay muujinayso in dadka cudurkaasi u dhintay ay ka yar yihiin aan iraahdo 100 qof oo kaliya afayeshay cadeymo ay kooxda soo saartay barnaamijka BBC ee loo yaqaan Africa ay soo ururiyeen waaxda kaliya ee loogu talagalay in lagu daboolo viruska corona ee magaalada Muqdisho masaajidyada iyo xabaalaha magaalada ayaa waxay muujinayaan in tirada dhabta ah ay intaasi aad uga badan tahay faafaynta warkaasi waxa inoo haya waliye Jamaal Maxamed Cusmaan markaad fiiriso goobta gargaarka degdega ee bukaanka COVID-19 waxay u muuqataa meel habaysan daahyo buluuga oo dhalaalaya ayaa ku hareeraysan sariiraha darbiga rinji cusub ayaa la mariyay qalabku wuxuu u eg yahay mid casri ah shaqaaluhu waxay xidhan yihiin qalabka difaaca laakiin waxaa bulsho 16 milyan ah u yaala 20 sariirood kaliya waa isbitaalka Martini oo ka mid ah goobaha caafimaad ee ugu da'da weyn Muqdisho mana aha meel si fiican u qalabaysan qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ayaa hawshan halis u arkay kuwa kalena waxay aaminsan yihiin inay mas'uuliyad ka saaran tahay inay halkan ku nagaadaan waxa ka mid ah Dr. Xilwa waa hooyo da'yar oo kaligeed korisa ilmaheeda waxaan nafteeda u horay inaan u shaqeeyo dadkayga alxamdulillah aan ku qanacsanahay isla dabayaaqadii April 32 qof ayaa ku dhintay isbitaalkan qaarkood waxay sababsadeen qalabka caafimaad oo kooban bukaanada inta u badan waxay u dhimanayaan oxygen la'aan nin da'yar ayaa hadda la keenay dhakhaatiirta waxaa saaka ka geeriyooday 2 bukaan waxay ku dadaalayaan inuuna qof kale geeriyoonin laakiin maskarada gadaasheeda Dr. Xilwa iyo asxaabteeda waxaa rajo dilaya qalabka liita mashiinka hawada oo aanan shaqaynayn darteed dhakhaatiirtu waxay ku guuldaraysteen inay badbaadiyaan ninkan wuxuu ahaa 34 jir wuxuuna ka tagay 11 caruur dawladdu siday soo saartay tirada u dhimatay COVID-19 ee Soomaaliya waa in ka yar 100 qof laakiin Dr. Xilwa way ogtahay in tirada dhabta ah ay aad uga badan tahay sababtoo ah dadka ku dhintay isbitaalka Martini kaliya ayaa lagu daraa tirada dhimashada rasmiga ah ee dawladda hadda waxa sameeynayaa
total dhimashada isbitaalka dadkii dhinteen dad badan oo reer Muqdisho ah waxay ku shaabadeeyeen Martini isbitaalka dhimashada waxay ka aaminsan yihiin meel isbitaalka meel lagu dhimanayo meel xabsi ah oo maxaa la dhahaa aysan awood heli karin aysan soo bixi karin isbitaalka waxyaabo badan ay ka aaminsan yihiin dadka Martini hay geenin isbitaal ay geenin hadii meeshaas inta guriga ku dhintay ay fiicanta meeshaas la geen lahaa Soomaali badan diintu waxay qayb muhiim ah ka qaadataa noloshooda iyadoo safmareen jiro haddana masaajidadu wali way furan yihiin dadkan qaarkood waxay aaminsan yihiin in diintu gaashaan u tahay waxay ilaahay qofkii ilaahay ugu talgal ku dhaca bis qofka kuma dhici karo dadka saas aaminsana 10 hore ramadaanka iyo 15 shacbaan u dambeysay janaasooyin badan masjidka la keenay way jiraan aad u badan imaamkan wuxuu noo sheegay in bil iyo maalmo gudahood uu janaaso ku tukaday meydad ka badan 60 qof kuwaas oo ku xidhnaa masaajidkan meydadka lagu tukaday intooda badan lama geyn isbitaalka Martini si loo daweeyo waxaanu imaamka weydiinay sababta dadku badi guryooda iska joogeeno hadda waa war badan soo gaara dadka oo meel hebel dadkii la geeyay iyo arrimihiisa qof meel ku xayirtay istaalada iyo sidii qaar dadka waxba ka dhaadhacsan qaarkood oo istaalkii hore ma aysan aadin haddana xabaaluhu si degdeg ah ayay u buuxsamayaan si aan u baadhno waxaan aadnay qabuuraha Barakaad oo kamid ah kuwa ugu waaweyn Muqdisho bishii Janaayo qayb ballaaran oo qubuurahan kamida ayaa la furay taasoo ay ka buuxaan xabaalo fara badan oo cusub meydadka wali waa la keenayaa intooda badan kama imaanayaan isbitaalka Martini dadku way tukanayaan laakiin kala fogaansho bulsho ma jirto jaribaad iyo mucjisaad jirta ilaahay naga qaado dadka u dhimanaya fayraska kuma eka caasimadda Muqdisho waxaan maqlaynaa in dad tiro badan ay ku dhimanayaan qaybaha kale ee dalka nasiib darro 10 sano oo dagaal lagu jiray kadib waxaad moodaa in Soomaalidu la qabsatay dhimashada hadda laakiin dilaagu waa mid qarsoon wariye Jamaal Maxamed Cusmaan warbixintii uu ka diyaariyay dhimashada xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya ayuu kaasi ahaa qodobkaasi dadka ku dhimanaya Soomaaliya waxa fikirkiisa ka soo dhiibtay Cabdullaahi Jaamac Oogle wuxuu joogaa Burco wuxuu yiri xogta BBC-du ay heshay in caabuqa COVID-19 ee Soomaaliya dadka u dhintay inay ka badan yihiin inta dawladda Soomaaliya ay shaacisay runtii waa mid walaaceeda leh oo muujinaysa xaaladda caafimaad ee caabuqan inay halis badan tahay xogtaasi waa mid sax ah waayo dadka qaar badan oo dhintay dawladdu ma ogo waana tan xogtan xoojinaysa Cabdirashiid Maxamed Cumar Boora mu jooga wuxuu yiri dadka uu corona dilay ee Soomaaliya ee tira ahaan ka badan intii dawladdu sheegtay waa arrin xaqiiqo ah waxay taasi sabab u ah shacabka Soomaaliyeed oo dhagaha ka furaystay fariimaha ay dhaqaatiirta caafimaad dadka la wadaagayaan dawladduna waxay gabtay awoodeedii lama oran karo way ku fashilantay meeshaasan ku celiyo wuxuu yiri dawladduna way qabatay awoodeedii oo lama oran karo way ku fashilantay kaas wuxuu ahaa Cabdirashiid Maxamed oo Boorame fikirkiisa ka soo dhiibtay kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba barta bbcsomali.com waxa ka go'an inay ku soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyaga oo maqalaya muuqaalba leh warbixinadii ugu dambeeyay waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay ku soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla markaa ay dhacayaan ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook booqo oo kala soco mobilkaaga wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com markasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com ciyaarihii horyaalka England waa lagu kala baxay Liverpool baa koobka qaaday balse lambarada 1 iyo 2 iyo 3 ayaa lagu xisaabtamayo Manchester City labaad gashay Man United saddexaad gashay Chelsea afraad waxa hoos u dhacay Bournemouth Watford iyo Norwich aan iraahday haatana baafintii
baafinta maanta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tibanaya anigoo ah Faisal Bishaar Aligo iyo Caaisha Saciid Xasan. Caaisha, mahadsanid Aligo. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Leylo Cabdulaahi Suuqow oo joogta Kismaayo. waxay baafinaysaa Mahada Cabdulaahi Suuqow waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Mareykanka 2003. haddaba haddii ayna maqlayso Mahada Cabdulaahi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Leylo Cabdulaahi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kismaayo. maxamuud Cabbaas Xaaji Maxamuud oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Bashiir Xaaji Maxamuud waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ethiopia sanadii 1999. haddaba haddii uu maqlayo ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Maxamuud Cabbaas Xaaji Maxamuud iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. Marwa Cabdulaahi Nuur oo joogta Kismaayo waxay baafinaysaa Saadaam Cabdulaahi Nuur waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya 2006. haddaba haddii uu maqlayo Saadaam Cabdulaahi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Marwa Cabdulaahi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. Maxamed Aadan Guudle oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa dadka kale ah Canab Nuur Guudle, Maxamed Xasan Guudle, Maxamed Cabdi Guudle waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan dalka Mareykanka sanadii 2010. haddaba haddii ayna maqlayaan ama ay jirto cid garanayso fadlan warkooda ha la gaarsiiyo Maxamed Aadan Guudle iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo ama telefoon nambarkiisu yahay 25 26 13 46 87 32. Hodan Yuusuf Cabdi oo joogta Kismaayo waxay baafinaysaa Zahra Yuusuf Cabdi waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Kenya 2010. haddaba haddii ayna maqlayso Zahra Yuusuf ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Hodan Yuusuf iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. Yuusuf Cabdiqaadir Cabdulle oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Iisha Cabdiqaadir Cabdulle waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2014. haddaba haddii ayna maqlayso ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo Yuusuf Cabdiqaadir Cabdulle iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. Salaado Cabdi Cali oo joogta Kismaayo waxay baafinaysaa Qureysho Maxamed Aadan waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Kenya 2006. haddaba haddii ayna maqlayso Qureysho Maxamed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Salaado Cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. Maxamed Cusmaan Geedi oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Shariif Maxamed Cusmaan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Kenya sanadii 2000. haddaba haddii uu maqlayo ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo Maxamed Cusmaan Geedi iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. Maxamed Yuusuf Dayib oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Cabdulaahi Yuusuf Dayib iyo Maryan Yuusuf Dayib waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Mareykanka 2017. haddaba haddii ayna maqlayaan Maryan iyo Cabdulaahi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo Maxamed Yuusuf Dayib iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. Cabdulaahi Xuseen Cabdi oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Axmed Xuseen Cabdi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Kenya sanadii 1993. haddaba haddii uu maqlayo ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo Cabdulaahi Xuseen Cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. Cabdifataax Xasan Muuse oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Warsan Xasan Muuse waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Mareykanka 2016. haddaba haddii ayna maqlayso Warsan Xasan Muuse ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Cabdifataax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. Maxamed Cabdi Sheekh oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Sucaada Cabdi Sheekh waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Kenya sanadii 1997. haddaba haddii ayna maqlayso ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo Maxamed Cabdi Sheekh iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. Fartuun Maxamed Bile oo joogta Kismaayo waxay baafinaysaa Cabdinuur Maxamed Bile waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Mareykanka. haddaba haddii uu maqlayo Cabdinuur Maxamed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Fartuun Maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo.
salebaan axmed saciid oo jooga kismaayo waxa uu baafinayaa moxamed axmed saciid waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka kenya sanadii haddaba haddii uuna maqlayo amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo salebaan axmed saciid iyadoo wix wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay kismaayo. yurub cali warsame oo joogta kismaayo waxay baafinaysaa dadka kale ah muuse cali warsame iyo asli samatar cusmaan waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan maraykanka 2018 haddaba haddii ayna maqlayaan asli iyo muuse amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo yurub cali warsame iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay kismaayo. zaynab maxamed cusmaan oo joogto kismaayo waxa ay baafinaysaa dadka kale ah mahad jaamac salaad iyo cabdi jaamac salaad waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan dalka kenya haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkooda ha la gaarsiiyo zaynab maxamed cusmaan iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay kismaayo. faysal cali yacquub oo jooga kismaayo waxa uu baafinayaa farxiye cali yacquub waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan sacuudiga haddaba haddii ayna maqlayso farxiye cali yacquub amaba jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo faysal cali iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay kismaayo. xaliimo cabaas xaaji maxamuud oo joogto kismaayo waxa ay baafinaysaa bashiir xaaji maxamuud waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ethiopia sanadii 1990 haddaba haddii uuna maqlayo amaba ay jirto fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo xaliimo cabaas xaaji maxamuud iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay kismaayo ama telefoon nambarkiisa uu yahay 2526 abshir cabdulaahi yaxye oo jooga kismaayo waxa uu baafinayaa waris cabdulaahi yaxye iyo siciid ciise cali waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Australia 2016 haddaba haddii ayna maqlayaan waris iyo siciid amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo abshir cabdulaahi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay kismaayo. sacdiya macalin cali oo joogta kismaayo waxa ay baafinaysaa faadimo cabdulaahi cabdulle waxaa ugu wardambeysay iyadoo joogta Soomaaliya sanadii 1990 haddaba haddii ayna maqlayso amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo sacdiya macalin cali iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay kismaayo. سعيد موسى أحمد وجوجا كسمايو waxa uu baafinaya Cabdiqani Muuse Axmed iyo Shukri Muuse Axmed waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Mareykanka 2018 haddaba haddii ay maqlayaan Cabdiqani iyo Shukri ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Siciid Muuse iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. xaliimo cabdi aadan oo joogto Kismaayo waxa ay baafinaysaa Salaado Bashiir aadan waxa ugu wardambeysay iyadoo joogta dalka Kenya haddaba haddii ayna maqlayso amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo xaliimo cabdi aadan iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo ama uu telefoon nambarkeedu yahay 2526 mursal cali dhoore oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa cali dhoore muuse waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Mareykanka 2018 haddaba haddii uu maqlayo cali dhoore muuse ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo mursal cali ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. maxamuud cabdulaahi yaxye oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Fawziya cabdulaahi yaxye waxa ugu wardambeysay iyadoo joogta dalka Mareykanka sanadii 2018 haddaba haddii ayna maqlayso ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo maxamuud cabdulaahi yaxye iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo ama uu telefoon nambarkiisu yahay 25 foos duwane cawil oo joogto Kismaayo waxay baafinaysaa dadka kale ah Xaajiyo Xuseen Biif Kaltuun Xaaji Cureeji Xuseen Biif Maano Xuseen Biif kaltuumo Xuseen Biif iyo Khadiijo Xuseen Biif dhamaan dadkaasi waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Norway 2000 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo foos duwane cawil ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. shukri cabdi ismaaciil oo joogta Kismaayo waxa ay baafinaysaa murtaan cabdi ismaaciil waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Uganda sanadii 2003 haddaba haddii ayna maqlayso ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo shukri cabdi ismaaciil iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. Xaaji Muuse Makoma oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Mberwa Mahdi Mbere waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Ethiopia 1987
haddaba haddii uuna maqlayo mbeerwa amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo xaaji muuse mkomo iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. baafinta ugu dambeysana waxay naga soo gaartay Muraya Sheekh Maxamed oo joogta Kismaayo waxay baafinaysaa Cabdiyo Sheekh Maxamed waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan dalka Kenya sanadii 2001 haddaba haddii ayna maqlayso ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo Muraya Sheekh Maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Kismaayo ama telefoon numberkeedu yahay eber 615 26 62 21 baafintiina waa naga intaa وماثلين أصحابتي بافنت برنامج كنا أنت سنقصوا قتما يا عدي أوسيغي وحين قد يسكرتها bbcsomali.com تانية قلبتها نبت قليو